dowladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa ka bilowday magaalada Hargeysa mashruuc lagu diiwaangelinayo hantida maguurtada ah iyadoo dowladda hoose ay ka bilowday degmada Ibrahim Koodbor gaar ahaan xaafadda Golaale mas'uuliyiinta dowladda hoose caasimadda Hargeysa oo warkacayo duqa caasimadda Hargeysa maayir ku-xigeenka xogayaha fulinta dowladda hoose iyo xubno kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay xildhibaan Xasan Shahar xildhibaan Ilyas iyo xildhibaan Cabdullaahi Siciid oo dadweynaha ku nool caasimadda Hargeysa ugu baaqay in ay dowladda hoose kala shaqeeyaan diiwaangelinta hantida maguurtada ah waxay halkaasi uga mahad celiyeen xildhibaan Xismaan Waxar oo mashruucan soo abaabulay waxyaabuhu koobsanayo numberka guriyo waxyaabo koobsanayo waxa kamid ah cashuurtii lagu filaqsaneyd ee aan marmarwaay jirnay ku filaqsanay magaalada wala helayaa wixii adreeska qofka hadii qofka maanta looga soo diray adreeska wax oo la yiraahdo guriga Heblaaye geey waxaan doonaynaa si loo soconayo inaynu alaabtii inaynu gacanta ka saaro albaab la garaaco ujeedada diiwaangelinta waxa ay isku dheelitiraysaa waxa laga yaabaa in xaafadaha qaarkood iyadoo wadadii sanadkii hore laga sameeyay sanadkii hore kale laga sameeyay mid saddexaadna laga sameeyay waxa weeyaan muhiim bay noo tahay runaantii in tiradii aynu helo guryaheena in tiradii wadooyinkeena aynu helo seen magaciisa ugu bixino wala mashruuc abid ugu ballaarnaa ee dowladda hoose ay qabato waxyaabaha uu koobsanayo waxa kamid ah tafaasiishii guriga lagu tagayo tilmaantiisa qadiisa waxa kale oo ku jira tirakoobkii dadka ayaa ku dhex jira guri kasta oo la marayo population-ka ku nool ama tirada dadka ee ku nool waxa kale oo ku jira ajnabiga degan magaalada oo tiradooda shaqadooda sharciyada ay ku joogaan inta caruura inta waaweyn waxa way tafaasiil aad u badan ka bixinaya xogayaha fulinta dowladda hoose caasimadda Hargeysa mudane Axmed Darajo ayaa bulshada ku nool caasimadda Hargeysa ku booriyay inay iska bixiyaan cashuurta ku waajibtay waxa la heli karayaa baahiyo jiray degmooyinka ka jiray gudahooda ayaa la heli karayaa waxa la heli karayaa hatta nabadgelyada qayb weyn ay ka qaadanaysaa si fiican oo qurux badan ayaa insha Allah taala anu rajeynaa in hawshaas ay u bilaabato una dhamaato maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa mudane Cabdicasiis Cagaweyne ayaa ka hadlay qorshayaasha kala duwan ee dowladda hoose caasimadda Hargeysa iyo waxqabadka ay ku tallaabsadeen muddadii ay joogeen waxaan leeyahay kuwana dhaliila ee wax naga sheega ee namaaga ee nayra cashuurta xagee la geeyay waxa maxaa loo sameeyay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin runtii anagu dhaliishiina waxaan u qaadan doonaa toosin muddadaan joogno waa la og yahay muddadii anaga goolayaashii naga horreeyay joogayna waa la og yahay intaan joogno waxa la qabtayna waa la og yahay dhii caafimaad qaba way arkayaan waxaan doonaynaa inaanu qabanana haga degdegina baanu leenahay ugu dambeyntii waxa halkaasi hadal kooban ka jeediyay duqa caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Solteeko oo ka waramay in mashruucan lagu diiwaangelinayo hantida maguurtada uu kamid yahay qorshayaashii u degsanaa golaha deegaanka caasimadda Hargeysa golaha deegaan ahaan waxaanu samaysanay bilaris aanu doonayno inaanu gaadhno ama meel aanu higsanayno oo inaanu gaadhno doonayno kun ahaantii qaar way dhamaadeen imika intaanu joognay waxa ka dhismaha debdemiska waxa laba ka dhismaha qalab iyo asad ay yeelato dowladda hoose waxa saddex ka in wadooyin caalami iyo standard loo dhiso ummadda inaanu magaalada u sameeyno number ay wada isticmaalaan oo ah cidda sharci u leeyahay inay sameeysaa dowladda hoose oo ah inay isticmaalaan light telefoonka biyaha maaliyadda cid kastoo isticmaalaysa waxa weeyaan waa address number bay noqonaysaa in qofka numberkiisa xaafadiisa iyo toos loo sameeyo qodobka labaad waa mulkiyadda waxa weeyaan markuu jaga bannaan yahay ayuu file-ku anfacaa marka aqalka la dhiso ee imika numberka la siiyo waa inuu qof walba la siiyo numberkaasi mulkiyadii samaystaa waayo aqalka waxa cadeynaya inuu qofku leeyahay uu aqalka leeyahay waa mulkiyada iyadana muddada ay socoto qofkii ku dhamaysan waaya waxay qaadan doontaa isagana inay waqti dheer iyo qiimo badan ay ku kacdo waxaan leeyahay muddada ay socoto qof kasta oo aan wareejin oo aan magaciisa kula wareegin waa inuu sharciyad iyo processkii maraa muddada 3 bilood gudahooda oo uu ku kala wareejista ayuu magaciisa ku wareejiyaa